بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa yuusuf cali geedi. waxaan ka tirsanahay bahda nabadda, cadaaladda iyo nolosha wanaagsan ee bini'aadamka yeesho. sida aad ogtihiin, waxa fiican sheegitaankooda waa la badiyaa. sidaas ayay waxa fiican ku bilaabmaan, kuna samaysmaan, kuna noqdaan wax jiro oo la yaqaano. waxaan rabaa in aan idin soo jeediyo talo nabadeed oo aan aaminsanahay in ay wax u tari karto nabadda ummadda Soomaaliyeed. waxaan ognahay kulligeen inay sax tahay, noona fiican tahay in aan ka shaqeyno wax kasta oo aan nabad ku heli karno, raallina isaga noqon karno haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed. waxaan idinkula talinayaa mudanayaal iyo marwooyin, anigoo marka hore og in aad u taagan tihiin mar kasta difaacidda jiritaanka qarannimada ummadda Soomaaliyeed, kunana difaacdiin maalkiinna, cilmigiinna, dhiiggiinna si hagar la'aana oo aan dano gaar ah ku dhex jirin. waxaan jeclaan lahaa in aad muhiimad gaar ah siisiin idinkoo marka hore isla fahmayo qiimaha ay leedahay xorriyadda, madax bannaanida ee fikrad yeelashada shakhsiga Soomaaliyeed. ka Soomaalinimo ahaan mar hore ayaan ku guulaysanay madax bannaanideena ummadnimo oo aan ka mid noqonnay ummadaha xorta ah ee ku nool caalamka. oo waan naqaanaa qiimaha ay leedahay xorriyadda, waana ilaahay mahadiis inaysan nihaysan dhibaato xorriyad la'aan ah. kuwii u halgamay xorriyadda ummadda Soomaaliyeed ficil iyo qowl wax kastaba ilaahay ha siiyo adduun iyo aakhiro taama. laakiin waxaa weli bahdilan oo aan madax bannaani haysan xorriyadda fikrad yeelashada shakhsiyadeed ee Soomaaliyeed. oo waxaan ognahay in dad badan oo Soomaali ah ay dad kale oo Soomaali ah ku dhibaateeyeen, kuna dhibaateeyaan mar kasta fikradooda oo ay soo bandhigeen. taas waxay keeni kartaa qatar sababto marka dambe burbur iyo kala qaybsi ku yimaado qarannimada iyo ummadnimada ummadda Soomaaliyeed. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka rajaynayaa in aad garab siisiin inay sax tahay fikrad yeelashada qofka bini'aadamka. sida aan jecelnahay kulligeen, qof kasta oo Soomaali ah waa u madax bannaan yahay fikraddiisa shakhsiyadeed haddii uusanba ka hor imaanaynin diinta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed.